looga xishoodo macnihiisu rasuulku fasiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxii xifdiya madaxa iyo xubnaha ku yaala calooshana xifdiyo ilaaliya geerida iyo dhimashadana xusuusteeda badiya adduun iyo aakharana aakhara doorta ruuxaasi ilaahay waa ka xishooday xishood xaq ah maxaa la yidhi madaxa xifdiyey iyo waxa ku yaala madax maxaa ku yaala madax waxaa ku yaala dhagihii waxaa ku yaala indhihii waxaa ku yaala afkii waxaa ku yaala maskaxdii madaxani waxaa ku yaala intaasoo xubnood kulli wuu ilaaliyey haddii madaxa xubnaha ku yaallo indhuhu ka mid yihiin la ilaaliyana xubinkii tarankana waa la xifdiyey saas daraaddeed rabbigeen tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna lianna qadu lbasar ayaa wuxuu u yahay wasiilo u yahay xifdu lfarjiga saas daraaddeed baa laysu daba dhigaya marka nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam ruuxii xifdiya madaxa iyo xubnaha ku yaala calooshana xifdiya iyo waxay weelaysay oo xaaraamta iyo cuntada iyo cabitaanka xaaraamta ka ilaaliyo xalaasha ku ilaaliya geerida iyo aakharana xusuusteeda badiya adduun iyo aakharana kala badaneh adduunkiisa ka tago aakharadiisa doorbidoo ka doortaay ruuxaasi ilahay waa ka xishooday tabaaraka wa tacaala marka xishoodka alle tabaaraka wa tacaala sidoo kaleeta addoommadiisana inaad ka xishooto laanna nebigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh rasuulku wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh iimaanka iyo xishoodku way isku lamaan yihiin idaa rufica axaduhumaa rufica alaakhar midkood haddii meesha uu ka baxo kii kalena waa raacaya ma kala hadhaan haddaad aragto ruux xishood la-aan ah macnaheedu iimaan baan jirin markuu nebigu uri sal lla alay slam iimaanku waa 72 qaybood laa ilaaha ila allahu baa ugu sarraysa imaadatu ladaa cani ariiqina waa ka hoosaysaa waa ugu hoosaysaa wuxuu nebigu yidhi walxayaau shucbatun min aliimaan xishoodku waa gabal iimaanka ka mid ah macnihii iimaankuna sameeyaa ruuxu markuu xishood leeyahay xumaantuu ka sarriigtaa ilaahay tabaaraka wa tacaala allihii abuurtay inuu xumaan ku arko isagoo irsaaqaya oo biilaya oo caafimaadka siiyey oo nolosha siiyey oo abuurtay oo uu u noqon doono inuu haddana xumaan rabbi necab yahay ku arkuu ka xishoonaya khalqiga ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu hor joogo waa ka xishoonaya haddii uusan iimaan lahaynna uusan ruuxu xishood lahaynna wax walbaa laga filanay markaas sariig ma leh wax kasta waa laga filan karaa xadiidkii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina mima adraka annaasu min kalaami alnubuwati اluulaa idaa lam tastaxyi fasnac maa shi't waxyaalaha murtida ee laga soo gaadhay ambiyadii hore waxaa ka mid a haddaadan xishoonaynin waxaa doonto sameeya haddaadan xishoonayn wax walba waa kaa suuroobaan haddaadan xishoonayn xayawaanaadkii adigu waxba kuma kala gedisnidin soomaalidana gaalada iyo dhaqankeeda sida xayawaanaadka u noole xayawaanaadkaa dhaama bal hum adallu sabiila xayawaanaadka xataa dhaama meeshay ka joogaan bini aadamnimadii iyo akhlaaqdii iyo dhaqankii bini aadamka ilaahay ku karaameeyey xataa xayawaanaadkaa dhaama laanna xishoodkii akhlaaqdii bay ka tageen akhlaaqda marka walaalayaal waa arrin weyn waa tiir weyn saad ogsoontihiin ummaddan ay oo qur-aanku ka warramay nabiyullaahi luut calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam qowmkii loo diray oo reer luut qowmu luut asbaabta loo halaagayo loo baabi'iye marka la sheegayo sababka ugu baarisana inta badan la sheegaayo waxa weeye akhlaaq xumad iyo dhaqan xumad ay ku kaceen akhlaaq xumo ayaa inta la qaaday ummadaha kale iyagoo meeshooda degan unbaaba la baabi'in jiray ayaga laakiin akhlaaq xumadu waxay gaadhsiisay cadaabka ilaahay tabaaraka wa tacala ee ciqaabta lagu sameeyey ummad ka horraysay oo lagu sameeyeyna lama sheegin ummad ka dambaysay oo lagu sameeyeyna lama sheegin dhulka i deganayn inta lala qaaday oo kor la geeyey oo la soo dabarogay baa intay dhexda kusoo jireenna waxaa lagu garaacay sawaariikh iyo waxaa lala dhacay wax ilaahay ee tabaaraka wa tacala xaggiisa ka yimid maxay ku galabsadeen dhaqan xumo akhlaaq xumo akhlaaq xumada marka walaalayaal sideedaba adduun iyo aakharaba waa dullinimo adduunkana waa lagu dulloobaa aakharana wax weeyaan iskaba dhaaf waana midda gaala inala doonayso gaalo waxay inala doonayso oo guryaheenna ka doonayso
oo gabdhaha ka doonayso oo dumarka ka doonayso oo dhalinyarada ka doonayso wax kale ma sida yihiin inaan noqonay doonayaan waddu law takfuruna kama kafaru sama